shirkadda isgaarsiinta Hormuud Foundation ayaa deeq lacaga oo gaaraysa 100,000 oo dollar oo hordhaca waxay ugu deeqday qaar kamid ah dadka saameynta ay ku yeesheen fatahaadda uu sameeyay webiga Shabeelle. Cabdiqaadir Cumar Cabdulla Fiidka ayaa warkan faahfaahinaya. shirkan jaraa'id oo magaalada caasimadda ee Muqdisho ku qabatay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom Soomaaliya qaybteeda Hormuud Foundation ayaa waxa uu ahaa mid ku saabsan xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan halkaasi oo toddobaadkani fatahaad uu sameeyay webiga Shabeelle markaasi ay saameysay dadkii ku dhaqnaa magaaladaasi oo ku dhawaad 100,000 oo qof ku qasabtay in ay ka barakacaan gudaha magaalada. shirka jaraa'id waxa lagu sheegay in Hormuud Foundation ay ku bixinayso si hordhaca lacag gaaraysa 100,000 oo dollarka Mareykanka kaasi ay ugu talagaleen in markaasi wax loogu qabto dadka xaaladda degdeg ah ee ka soo gaartay dhibaatada webiga Shabeelle fatahaaddu uu ku sameeyay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne. madaxa qaybta Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan ayaa akhrinaya shirka jaraa'id. shirkan jaraa'id galabta waxa uu ku saabsan yahay fatahaadda webiga Shabeelle uu ku fatahay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. sida aad la socoteen maalmihii la soo dhaafay waxaa ka dhacay magaalada Beledweyne fatahaad uu soo fatahay webiga Shabeelle oo ah fatahaadda inta la xasuusan yahay kuwii ugu waaweynaa. fatahaaddu waxa ay saameysay in ka badan 80% magaalada isla markaasna waxa ay dhalisay barakac ku dhacay dadkii deganaa magaalada in ka badan ilaa 100,000 ayaa waxa ay u baxeen banaanka magaalada. runtii dadkaas waxay ku noolayeen xaalad adag oo arrintan waxay ku dhacday si degdeg ah oo aanan looga diyaar garoobin. sidaa darteed shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ayadoo la qaybsanaysa markasta culayska ama xaaladaha adag ee soo wajaha bulshada Soomaaliyeed waxa ay maanta ay halkan ay uga dhawaaqaysaa inay ku taakuleynayso dadkaas lacag hordhac ah oo ah 100,000 oo dollar. waa 100,000 oo dollar oo lagu gaarsiin doono gargaar dadkaasi ay ku dhaceen ay ku dhacday fatahaadda biyaha webiga. isla markaasna waxaan si dhow ula socon doonaa xaaladaas ka jirta meeshaas iyo hadba wixii ku soo kordho. sidaad ogtihiin shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom waxay ka howlgashaa 12 gobol oo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya. gobolka Hiiraan wuxuu kamid yahay goboladaas mid kamid ah. waxaa jooga mas'uuliyiintii iyo maamulkii shaqaalaha shirkadda oo qayb ka ah dadkaas ay saameysay fatahaadda oo la falgalaya xaaladda. si dhow ayaan ula soconaa hadba duruufaha meesha ay marayaan. ugu dambeyntii Muxyidiin Xasan Cusubow oo ah gudoomiyaha qaybta suuqgeynta ee Hormuud Telecom ayaa sheegay in markaasi lacagtaani 100,000 oo dollar sida hordhaca ah ay u bixinayso Hormuud Foundation markaasi inay ugu talagaleen inay ugu daydaan shirkadaha kale ee dalka ka jira. shirkadda Hormuud sida hore uga barateen ama ummadda Soomaaliyeed ay caan ku tahay shirkaddu ma waa shirkad ganacsi kaliya ma ahane waa shirkad u abuuran ummadeeda inay samafalka iyo wax allaale wixii dhibaato ah oo soo wajaha ay ka qayb qaadato. arrintaas ayaa waxay shirkadda ku dhalisay inay gurmudkii ugu horreeyay ay fidiso oo aan ahayn gurmudadii hore ay fidi jirtay laakiin xaaladda hadda abuurantay ay ka fidiso iyadoo lacagtaas loogu deeqay 100,000 oo dollarna muhiimadeedu ay tahay in dadka Soomaaliyeed wax haysta ee shirkadka kala ah inay uga daydaan shirkadda. dadku hadday iskaashadaan waxaan hubnaa inay iscaawin karaan. horena waa loo arkay beesha caalamka iyo intii gurmudkaas iyo waxaas indhaha loo taagi lahaa in ummadda Soomaaliyeed ninka wax haysta ilaahay uu siiyey dadka dhibaataysan ee masiibadu ku dhacday in insha Allah si gurmada maaragtay sida anaga shirkadda Hormuud ahaan ay ugu deeqdaas in ay ku daydaan. shirkan jaraa'id oo lacag gaaraysa 100,000 oo dollar ay ku bixisay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom Soomaaliya ay isla markaasina ugu deeqday dadkii fatahaadda webiga Shabeelle uu ku saameeyay magaalada Beledweyne ayaa ku soo aadeysa iyadoo toddobaadkan webiga Shabeelle fatahaadii uu ku sameeyay magaalada Beledweyne ay ku saameysay qoysas gaaraya ilaa 100,000 oo gudaha magaalada ay deganaayeen kaga barakacay. Cabdiqaadir Cumar Cabdulla Fiidka gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, Somali Cable TV.